قفك بني آدم كاللغو قيمية ما مظاهر الخارجية موقال كسره وحكم موقضة مسوح كله ميزانك الرجل مدو محوي dunida aynu maanta joogno dadku materialist buu noqday sida ogeed madaahirta aad ugu weyn quruxda isqurxinta jamaalka iyo wixii la mid ah halkuu jamaalku ka joogaa maalan shareecada waxaa jiray saxaabi la yidhaahdo zaahir bin alxaraam nin reer miyiya buu ahaa waa ashjaciya قبيلة غطفان لا يرى كمدة وعن بادية مركو كيما النبي عليه الصلاة والسلام وحيد هذا مركو يماده هذا يقول أما طرف شيء كذي طرف هذا وإحنا بقى فرح قلية أو كور رمه هذا يدنا وكان كذي النبي عليه الصلاة والسلام وبادية وكانه وحانو النبي عليه الصلاة والسلام marka uu ninkaasi baadiya ka yimaade magaalada yimaada hadhow markuu aan babaxayo nabigu kaleey salaatu wasalaam waa aan babixin jiray wixii magaalada kaga baxayo ayuu siin jiray marka sawgeedu nabigu wuxuu lahaa inna zaahiran baadiyatuna wa nahnu haadiruun zaahir waa reer miyiga iyaga annaguna magaalo joogiisii baanu nahay yaani isna waa ninka baadiya noo jooga dhaqanku wuxuu iska ahaan jiray dadka baadiyo hadiyada keenaan subag iyo caana iyo xoolo iyo wixii la mid ah hadhow markay magaalada ka baxayaan dhar iyo kaba iyo wixii la mid ah in la siiyo maalma ka miduu yimi zaahir muuqaalkiisa marka la eego waxa la yiraahdaa nin fool xun buu ahaa dabeetana magaaladu yimi isagoo suuqii wax lagu kala iibsanayo joogo wax gadaya iibinaya ayuu nabigu xagga dambe kaga yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana isagoo aan arkayn buu dhabarka kaga wayo saaw qabtay ma arka zaahir cidan dhabarka ka timee qabatay man hada arsilni buu yidhi war waa kuma isii daabuu leeyahy kadibna markuu jaleecay wuxuu arkay inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu isku nabay nabigu markaa intuu saaw qabtay buu wuxuu leeyahay وريا يجي يبسنا يبو النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا العبد بالنبي ورضون كان يجي قضانا يبو النبي عليه الصلاة والسلام سأقول الله كفتمية أدون كان يجي قضانا يا زاهر بامركا هذا يوحل يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا إلهي ما كنت دارت إلهي رسولك سيو هدادي قدبو يلي كاسدكو يعني وحويان waan kugu fadhiisanaya maxaa tiraahdaa tijaarada markay ka socon weydo suuq loo waayo aniga cidinay gadan mayso buu leeyahay ninkayga zaahira cid ka gadan mayso ilaahay rasuulkiisiyo waa igu baaraysaa waa igu fadhiisanaysaa ma layga ka gadanaya buu leeyahay nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lakin cinda allahi lasta bikaasid ama anta cinda allahi qaal حديث الشمائل المحمدية بكوية الله وأنا حديث صحيح صحيح علماء الشيخ والنبي كويل عليه الصلاة والسلام إلهي أكتي سميد باريا يا أمامد أن قد ما ينك ما تهدو نبي عليه الصلاة والسلام داي بني آدم كم مقال كاغوار كان قد ما ينين لست بكاسد عند الله والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قرحضه يا جمالك يا مقال كان صار alla agtiisa waxa qiimaha kule maaha saynu kala qurux badan ilaahay ugu ma kala dhawin saynu kala cadnahay ugu ma kala dhawin ilaahay agtiisa wax kala qiimo kale sida ogeed ba xadiidkii imaam muslim warinayay wuxuu nabigu leeyahay rubba ash'atha madfuu'in bil abwaab law aqsama ala allah la barra nabigu tilmaamay alayhi salatu wassalam rubba litaqlil aw litakthir rubba ash'atha la arkay mid basaasaysan timihiisa iyo wixiisa aanay faadhnayn ama shanlaysnayn oo basaasaysan oo madfuucin bil abwaab buu nabigu yidhi albaabada aan laga furin يعني ومسكين أما كان لا يلاحظوا أنا هين ضدك الله هشهش لي الباب كالله فرو أنا هين
لكن هدنا النبي محمد محوت المامي عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لأبره هدو إلهي كل دارتو إلهي والرمينية هدو إلى والله ساسا نقنيسا سيدي ودارتو إلهي والرمينية يعني النبي محوت المامي عليه الصلاة والسلام مركا وحا إذنكو وحكو قيمين إسان إدتك كو قدرين إسان إنانو أهين ألا أكتسا وحا وحلقو قدرينية سأوقات مدى إذن إدوك ألبابك كفرين وموقال كيسا سريعان وأهين موقال dadku ay soo dhaweeyaan ayaa haddana ilaahay agtiisa wuxuu ka gaarsiisay maqaamka hadduu alle ku dhaarto in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaartiisa uu rumaynayo yani waxaan leenahay mujtamacii muslimka ahaa markii uu ku dhacay cultural revolution waxay wax ku qiimeynayeen siday wax u arkayeen iyo maadada iyo adduunku qiimuhu la lahaa markuu isbedelay ay noqdeen wax kale waxa bini aadamka lagu qiimeeyaa lagu kala horumariyaa ee dadku ku baratamayaan markaas bay sameeyeen xadaraan dunida soo marin xadaraan dad kala sareeya lahayn oo aan isxaqiraynin oo aan quruxda iyo midabka sare qiimo ka joogin سأوجد سجوا النبي عليه الصلاة والسلام مسائل كسي حوجنا يا حديث كمسلمة كلا وككوت المامية إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم إلهي سبحانه وتعالى ما أجه مو قال كينا سيدا ويكتين أما حولين أما وحى السطان ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي وحى قلوبتنا وحى كتيرة إيه إيمانه يا لك عبسية التقوى أخلاق فيعنية وحا قلبي قيدن كجتشري الرميسنتين يا وحا يدن كسوفولية يا أعماله